waxaa saako ay taariikhdu tahay 8 bisha Abriil 2016 waxaa wadanka Jamhuuriyadda Djibouti gobolada kale dalka si rasmi ah uga bilaabmay doorashada madaxtinimada dalka Djibouti oo ay dadka reer Djibouti ku soo dooran doonaan qofkii hogaamin lahaa mustaqbalka. Goobaha laga codeynayo ay tiradoodu dhan tahay 456 xarumood ayaa saaka 6 subaxnimo si rasmi ah u furmay, waxaana la soo gabagabayn doonaa 6 fiidnimo ee caawa. Gobolka Cali Sabiix magaalada tan Cali Sabiix ayaa doorashada waxay ilaa haatan si habsami looga socotaa guud ahaan tuulooyinka hoos yimaada xiriir kala duwan oo la sameeyay tuulooyinka hoos yimaada gobolka Cali Sabiix ayaa la soo sheegaya inay doorashada si habsami looga socoto. dhanka kale waxaa heegan buuxa ku jira xafiiska guddoonka gobolka oo tan iyo shalay toole aad looga dareemayo inuu heegan yahay. waxaa guud ahaan wadanka Djibouti doorashada u dareeray dad tiradoodu dhan tahay iyadoo gobolka Cali Sabiix ay u dareereen 13,051 qof iyagoona ay codkooda ka dhiiban doonaan 35 xarumood oo laga codeynayo oo ku taala gobolka Cali Sabiix iyo tuulooyinka hoos yimaada. waxaa codkooda dhiibtay wasiirka wasaaradda tabarta Djibouti Cali Yacquub Maxamuud, gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Cawsowe, gudoomiyaha maamul goboleedka Cumar Axmed Wacays iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti kana soo jeeda gobolkan Cali Sabiix. Maxamuud Cusmaan Bulxaan, telefishinka caalamiga Universal, Cali Sabiix, Djibouti.